gifted and Safi. Ramadan Mubarak, Holy Records. رمضان مبارك لكل مسلم، شهر الذي فيها ينزل القرآن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halka aad nagala socotaan waa YouTube-ka walaalaha Jarmalka. Haatan caawa waxaan soo gaarnay gunti gabagabadii barnaamijkeena su'aalaha diiniga ahaa oo igala qayb qaadan doona walaalkay Usmaan Aadan. maanta waa maalin taariikhi ah waxaana si rasmi ah la weynin oo soo gaarsiiyay finaalka. maantana goobta finaalka waxaa madaxa isku dari doono aniga iyo walaalkay Maxamed. marka kulay ninkaan carafkiisa cunaa anna carafkayga cunaa. dhanka kaamirada barnaamijka waxaa sida caadada ah mar walba hagar la'aaneed naga saacido walaalkeena Mustafshiru. dhanka su'aalaha weydiintooda waxaa mas'uuliyad iyo ahmiyad gooni ah iska saaray sidoo kale walaalkay qaam. barnaamijkani kulay waa finaal waxa waaye dareenkaaga sidoo yahay gari laba ninka mawda qosli saaleer wadnaha inta kama baraada garaacitaanka ma waxa waaye barnaamijkan gudagal hayson amala waa sheenta kulana hore waxa maqli jiray farda la isku ay iskuma faaniyo marka barnaamijka haddii aad ogaatiin mar walba waxaan ilaaweynin inaad gambaleelka furataan subscribe inoo saartaan comment iyo share iyo like waa lacag la'aan nagu sadaqeysta. barnaamijkii haddana waxaa kusoo dhaweey doonaa walaalkay guddiga qaam asiga xoogaa micnaha faahfaahinta finaalkan iyo arrimo badan jeexjeexi doona. aad iyo aad u mahadsantahay walaalkay Usmaan. maanta waxaa miiska inoo saaran su'aalaha iyo jawaabaha oo gabagaba ah Maxamed Cabdirashiid iyo walaalkay Maluda insha Allah ta'ala. labadooda ninka guuleysta wuxuu leeyahay YouTube walaalaha channelka sii doona hadiyadii ugu talagalay aan rabnay inaan ku bixino masaajidka Abu Bakar. daruufo jira awooda inkastoo aan macnaha coronavirus iyo waxyaabahaas iska jiraan sidaas la'alligeeda waxaan ku bixi doonaa meeshaan insha Allah ta'ala. waxay nagala qayb gali doono asxaab qaar ee gadaal fadhida aan jeclayn inay kaamirada ka soo muuqdaan. marka insha Allah ta'ala haddana waxaan guda gali doonaa barnaamijkeeni. waxaan u maleynayaa inaad diyaar u tihiin caawa wixii inkastoo ay igala soo shaqeeyeen iskoolka alqarni iyo meelahaasaan ka keeno waxaan ku bilaabi doonaa Maxamed Cabdirashiid. waxaan u maleynayaa inaad diyaar u tahay. waxaad sheegtaa aayadda ugu horeyso qur-aanka halka ay kusoo degtay. haddii aan mar labaad kuugu celiyo waxaad sheegtaa aayadda ugu horeyso qur-aanka halka ay ku soo degtay. waxaan u maleynayaa inaad ka jawaabi doonto. su-aasha jawaabteeda hadda isku dayo waa qaaro xira. su-aasha la weydiiyey Maxamed waxaad sheegtaa aayadda ugu horeyso qur-aanka halka ay kusoo degtay. waxay kusoo degtay qaaro xira. waa sax. su-aashaasi 2 dhibcood ka qaado walaalaha channelka. haddii aan u gudmo su-aasha labaad waxaan weydiin doonaa Usmaan. waxaad sheegtaa kelimadaha qur-aanka ugu dheer. haddii aan mar labaad kugu celiyo waxaad sheegtaa kelimadaha qur-aanka ugu dheer. faasqaynakumuhu maa'an furaatan. su-aasha la weydiiyey Usmaan waxay ahayd waxaad sheegtaa kelimadaha qur-aanka ugu dheer. waa faasqaynaakum. waa sida uu sheegay sax. alxamdulilah masha Allah. su-aasha saddexaad waxaan weydiin doonaa Maxamed Cabdirashiid. waxaad sheegtaa magaca Nebi Maxamed meeqa mar ah qur-aanka lagu sheegay. haddii aan mar labaad kuugu celiyo waxaad sheegtaa magaca Nebiga Maxamed meeqa mar ah qur-aanka lagu sheegay. jawaabta su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayo waxaan jeclahay 4 jeer in lagu sheegay. waana waxa waaye 4 jeer lagu sheegay qur-aanka. su-aasha la weydiiyey waxay ahayd waxaad sheegtaa magaca Nebi Maxamed sallallahu alayhi wasallam meeqa mar ah qur-aanka lagu sheegay. wuxuuna yiri 4 jeer. waa sax. waxaan weydiinaynaa Mr. Usmaan. waxaad sheegtaa suuradaha ugu gaaban qur-aanka. haddii aan mar labaad kugu celiyo waxaad sheegtaa suuradaha ugu gaaban qur-aanka. suuradaha qur-aanka kariimka ah ugu gaaban waa suuratul kawthar iyo suuratul casr.
sidii Soomaalidu u taqaan wal casri iyo inaa cadaynaa. su-aasha la weydiiyey waxaa sheegtaa suuradaha ugu gaaban qur-aanka waana suuratul kowthar iyo suuratul casri. su-aashaasi sidaas ayay sax ku tahay. waxaan weydiin doonaa maxamed cabdirashiid, waa su-aasha 5aad. waxaad sheegtaa suuradaha wataan magacyada salaadaha. haddii aan mar labaad kugu celiyo, waxaad sheegtaa suuradaha wataan magacyada salaadaha. jawaab wacan. jawaabta saan jeclahay inay 3 suuradood yihiin ama 4. soo daaya guddiga waa kaaga fadhiyaa. ma garan karo laakiin saasaan qiyaasaa. su-aasha la weydiiyey maxamed cabdirashiid waxay ahayd waxaad sheegtaa suuradaha wataan magacyada salaada. wuuna ka jawaabi waayey. waxayse ka faa'iidayso hortaala master maluud ka faa'iidayso. waxaan filayaa inay yihiin suuratul casri iyo suuratul fajr. su-aasha la weydiiyey maxamed oo sida tan u dhacaysay waxaad sheegtaa suuradaha wataan magacyada salaadaha oo si ka faa'iidaysay oo hortagtay master cusmaan. waa sax, waa suuradaha alfajri iyo alcasr. chance waay. waa su-aashii 6aad ee barnaamijka gabagabadeeda. waxaan weydiin doonaa master maluda, waxaad sheegtaa suuradaha wataan magacyada xayawaanada. haddii aan mar labaad kuugu celiyo, waxaad sheegtaa suuradaha wataan magacyada xayawaanada. jawaab wacan. haddii aan isku dayo jawaabtaas waa suuratu albaqara, annaxal, annamal, cankabuud iyo fiil. su-aasha la weydiiyey oo ahayd waxaad sheegtaa suuradaha wataan magacyada xayawaanada. sida uu uga jawaabay waa midda saxda ah. barnaamijkeenina sidaasi ayuu kusoo gabagaboobay. waxaana guusha ku raacday maluuda uu ka jawaabay 4 su-aalood, halka dhigiisa maxamed cabdirashiidna uu ka jawaabay 2 su-aalood. maasha allah. horta hambalyaa ku leeyahay, laakiin dhidid badanaa kaa socda inaa badiis ma umaleeyin. haddayna bilowga jiraysa dadaal iyo juhdi aa soo sameeyey. maasha allah. waan ku faraxsanahay inaa ku guuleysto marxaladda habeeni badan oo soo dhafray heerka inaa gaaro. ugu hambalyeena marka walahi saaxiib waa mahadsantahay. aad laftirka waad gaashay maadaama maasha allah. fiinaal ay maanta ciyaar ma waa aad u mahadsan. tiidkan waxa waaye maanta waxa tacbaday waa cunaa maanta. maasha allah. hambalyo. waxaana sidaas inoogu soo gabagaboobay barnaamijkeeni su-aalaha diiniga iyo jawaabaha aad mar walba aad ka daawad jirteen youtube-keena walaalaha jarmalka. haddana waxaan gudagali doonaa hadiyadii aan ugu talagalnay qofkii guuleysta. hadiyadaasi oo bixin doono youtube-ka walaalaha jarmalka, khaasatan oo aniga iisoo wakiishteen. insha allahu tacaala waxaan gudaysiin doonaa badiyaha amba guuleystaha macnaha sida fiican usoo akhriyey. waxaan sii doonaa hadiyadii aan ugu talagalnay guuleystaha insha allahu tacaala. hadiyada ugu horeyso waa maasha allah waa kitaab qur-aanka kariimka. maasha allah. kii xifdiya allah kaa dhigo insha allahu tacaala. waxaa kaleeto aan guddoonsiin doonaa insha allahu tacaala iyadana sujaayadii oo salaada hadiyadana insha allahu tacaala midkii ku tugta allah kaa dhigo. dayacin daah oo daaqadeed maahan salaada waaye insha allahu tacaala. waxaa kaleeto aan ugu dari doonaa insha allah inkastoo hadda xaaladda wuxuu yahay wadankan yurub aan joogno. waxaa kaleeto oo wadankan jiro waa aragteen ilaahay horta naga qaado. inta muslimna xanuunsanna ilaahay ha caafiyo. dadaalkana waa wax fiican insha allahu tacaala. iyadana waxaan kuu soo raacanay bahashan magaceeda ii sheegay gacmaha lagu tirtirto. iyadana waxaa waaye inaad dadaasho iskama mariso handinfection afgaalka xoogaa iskuma fiicnin maasha allah ma fahamtay. marka waa kaya sidaasi barnaamijkeenu ku xiran yahay. waxaan ka codsanaa inaad laadgareysaan sheergareysaan oo gambaleelkana run ahaantii dareenkeyga farxadeed ma ahan mid lasoo koobi karo. alxamdulilah waxaa aada ugu faraxsanahay jaa-isada ay siiyeen walaalaha jarmalka. wuxuuna ahaa doonaa barnaamij dhiirigelin u ah ubadka oo diinta islaamka yacni lagu barbaarinaayo ilaa iyo waxay socon doontaa insha allah in muddo. horta ani ahaan muhiim u yahay salligaas waxaa ku gudan lahay waajibaadka 5 waqti mar walba. kitaabka qur-aankana wuxuu ii yahay muhiim oo akhrisan lahay. waxaa kaloo maalmahan soo kordhay bahashan oo gacanta la marsanayo hand disinfection aan lahaa wadanka muhiim ay ka tahay. kulay barnaamijkii su-aalaha jawaabaha iyo diiniga ahaa intaas ayuu noogu egyahay. caawaan soo abjarnay
walaalkay maxamed dareenkaaga mar kale mar saddexaad baan balya ku leeyahay horta marka hore maasha Allah barnaamij aad u fiican su'aalo diini in la isweydiiyo bisha barakeysan ee Ramadaan wax badan oo ka faa'iideysanay dadkan waxa rajeenaa inay wax badan ka faa'iideen iyagana إن شاء الله تعالى إلى أن نقول ذلك وكوي رمضان كي سنة بدك وجارو برنامج كان الديني كان أنت أسوق صور ماضي ما أنت دول برنامج كديني كداولي سين مرات عادي كوعلية مر سدحات مر أفراد إلا مرشنات ويوتيوب كولا راح جر مرة سأقول السعوديين برنامج الديني شيكوين جعل حيسا والبوركي نقالة إسبورتي وحول مهمة وحكى السعودي يوتيوب كولا راح جر سبسكرايب نوصار كومنتي شير إلاقنا نوصل دقيقة في أمان